dowladda Kenya waxay ka hadashay mowqifkeeda ku aadan go'aanka maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ kaasoo Soomaaliya loogu xukumay badi biyaha ay isku hayeen ee badweynta Hindiya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo mar uu ka soo baxay kulan uu la lahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay wax laga weydiiyay arrinta go'aanka maxkamadda ICJ wuxuu yiri I think all I will say on that is the ruling has just come out. I need to go through it. Came out while we're in the session, but definitely before the end of the day. Arrintaas waxaan ka oranayaa in xukunkii dhacay hadda intii aanu ku jirnay shirka waxaanan u baahanahay inaan darso laakiin jawaabteeda rasmiga ah dhawaan ayaad maqli doontaa. saacad ka hor ayay madaxtooyada Kenya waxay baahisay war-saxaafadeed Uhuru Kenyatta ku cadeeyay mowqifka dalkiisa isagoo gaashaanka u daruuray xukunka maxkamadda ICJ. warka oo ay si wada jira u soo saareen Uhuru Kenyatta iyo taliyaha ugu sarreeya ciidamada difaaca Kenya waxa lagu xusay in Kenya ay ka walaacsan tahay saameynta go'aankan ee gobolka Geeska Afrika iyo shuruucda caalamiga ah waa sida ay hadalka u dhigeen. Kenya iyadoo tixgelinaysa sareynta sharciga waxay qarsaneed jiritaanka maxkamadda iyo ahdaafta loo aasaasay balse Kenya weligeed may malaysan in ICJ ay ku kici doonto wax ka baxsan awoodaheeda ama ahdaafta loo unkay ayaa lagu yiri warka madaxtooyada Kenya. Kenya waxay maxkamadda cadaaladda dunida ku shaambadaysay dooda ah in hay'adaha caalamiga ah loo adeegsado in siyaasad ahaan lagu wiiqo wadamada Afrika. waxay ku andacoonaysaa in axdiyada midowga Afrika la dhowro iyadoo hadalka Kenya laga dheehanayay inay mar kale wada hadal rabto. xukuumadda Nairobi waxay shaki gelinaysaa awoodda ay maxkamaddu u leedahay ka gungaarka kiis noocan oo kale ah. warka Kenya waxa lagu sheegay sababta ay dacwadda uga baxeen oo lagu sheegay in maxkamaddu ay dhinac u xaglisay markii dhageysiga dacwaddu socotay. si ka duwan Kenya waxay bishii Maarch dalbatay in sabab la xiriira COVID-19 dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda balse markan sabab kale ayay la soo baxday. Kenya waxay intaa ku dartay in wixii ka dambeeyay dabayaaqada bishii dhamaatay ee September aanay aqoonsanayn jiritaanka maxkamadda ICJ. ugu dambeyn Kenya waxay tibaaxday inay diyaar u tahay xal ay keenaan midowga Afrika iyadoo doonaysa dhexdhexaadintii ay sanadada badan raadinaysay ee ay ka diiday dowladda federaalka Soomaaliya. go'aanka ICJ ama maxkamadda cadaaladda dunidu ma aha mid racfaan laga qaadan karo waxaana dhaqangalkiisa u xil saaran golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Khadar Haybasaab TV Hargeysa.